naada qalca waxay dhalatay sanadkii 1975. fanka waxay ku jirtaa muddo 22 sano ah. waxay guursatay 2 jeer oo hore. labadii jeer oo horeba nimankeedii way ka dhinteen. saaxiibayaal soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad. waa barnaamijkeennii aan hadba mowduuca uga hadli jirnay. isbuucan xalqadeenu waxay ku saabsan tahay sida aad ciwaanka ku soo aragteenba fanaanada caanka ah ee reer Suudaan naada qalca. sanadihii u dambeeyay gaar ahaan bilahan dambe waxaa aad loogu arkayay baraha bulshada Soomaalida gaar ahaan Facebooka magaca iyo sawirada fanaanadan reer Suudaan. adiga qudhaada waxaa laga yaabaa marar badan inay ka soo warbixeen boostiyo iyo sawirada naada qalca oo aad loo amaanayo. inta badan ragga dhalinyarada ah ayaa aad u amaana fanaanadan reer Suudaan naada qalca iyagoo ku sifeeya in ay tahay qof Ilaahay joog iyo jamaal bay isugu daray. hadallo duurxul ahna hawada u marinaya hablaha Soomaaliyeed. naada qalca oo ah fanaanad aad u isticmaasha baraha bulshada waliba si maalinle ah haddaysan ka badnaynba u soo gelisa bogeeda sawirro ay leedahay oo noocyo kala duwan oo ku talagal ahna loo qaaday ayaa haddii aad sawiradeeda commentiskooda akhrido waxaad ugu tagaysaa dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo halkaas faallooyin aad u dhaadheer oo kaftan iyo ammaan isugu jira ka dhiibanaya. marka maanta waxaanu si faahfaahsan uga hadli doonaa waa ayo naada qalca. inta aan xalqada gudagelin saaxiibayaal waxaan si xushmad iyo qadarin ku jirta idinkaga codsanayaa in haddii aad kanaalkayga horey ugu taxnaydeen aad like ii saartaan. haddii aad hadda ku cusub tihiin waxaan idinka codsanayaa in aad like iyo subscribe ii saartaan. Suudaan oo ah wadan fanka aad looga tixgeliyo lana ciirciiraya fanaaniin waaweyn oo aad u fara badan ayaa haddana waxaa si gaar ah uga dhex muuqda naada qalca oo ah xidig iskeed dhinac gaar ah uga ifaysa. heesaheeda oo kaliya maahan waxaa inta badan baraha bulshada Suudaanta dooda ka dhex dhaliya. sidoo kale waxaa la hadal hayaa inta badan qaab labiskeeda noocyada badan iyo nolosheeda khaaska ah iyo sidoo kale sida ay u tahay fanaanad aad ugu dhex jirta bulshada. magaceeda oo dhammaystiran waxaa la yiraahdaa naada maxamed ismaan halka magaca qalca uu yahay mandiqad ay ka deganayd magaalada Khartoum ee caasimadda wadanka Suudaan. mandiqadan oo ah meeshii ay ku soo qaaday heesaheedii ugu horeeyay waliba iyadoo aad u da'yar bartamihii 90-maadkii. naada qalca waxay dhalatay sanadkii 1975. fanka waxay ku jirtaa muddo 22 sano ah. waxay guursatay 2 jeer oo hore. labadii jeer oo horeba nimankeedii way ka dhinteen. markii koowaad waxay isguursadeen iyadoo 17 sano jir ah fanaan reer Suudaan ah oo caan ku ahaa garaacidda biyaanada magaciisana la oran jiray Waliid Xijaasi. ninkan ayaa soo geliyay saaxadda fanka aadna ugu gacan qabtay waayaheedii socod baradka fanka. waxayna u dhashay hal wiil. ninkeedan horese waa uu ka dhintay. haddana waxay guursatay nin kale. ninkan kale ay guursatay isna waxa uu ka dhintay sanadkii 2009 waxayna u dhashay ninkan dambe hal gabar. naada oo mar lagu wareysanayay barnaamij magaciisa la yiraahdo Kullul Xikaaya oo ka baxa TV-ga Suudani 24 ayaa waxay sheegtay in aysan ku fakareen in ay mar saddexaad guursato nin kale. naada qalca ilaa iyo hadda waxaa u diiwaan gashan oo internetka ugu jira ilaa 200 oo heesood oo ay iyadu si gaar ah u leedahay. 32 ka mid ah heesahaas ayay iyadu laxan ka saartay. naada qalca waxay heesaheeda ka wada shaqeeyeen qaybo badan oo ka mid ah fanaaniinta iyo laxamiistayaasha Suudaanta ugu waaweyn. naada waxay caan ku tahay heesaha xamaasiga ah waana nooc ka mid ah heesaha shacbiga ah ee Suudaanta dhaqankoodii hore ka hadla laguna ammaano raganimada, fardafuulnimada, deeqsinimada iyo karamka. qaybo ka mid ah heesaha naada qalca dood weyn ayay ka dhex dhaliyaan Suudaanta dhexdeeda. tusaale ahaan hees ay soo saartay sanadkii 2015 oo ay aad ugu dhaliilaysay ragga dumarka iska dhigdhiga ee isku ekaysiiya iyo ragga damaciya ayaa dood weyn ka dhex dhalisay Suudaan. warbaahinta Suudaan qayb ka mid ah ayaa ciwaan uga dhigtay heestan muranka badan dhalisay naada qalca oo hees ka soo qaaday mowduuc aan horey looga hadli jirin. halka qayb ka mid ah dadka ay ku eedeeyeen naada in dhaqan xumo dhowr qof ku kooban ay iyadu bulsho weynta sii maqalsiinayso. ugu dambeynna heestan waxaa mamnuucay
golaha fanka iyo suugaanta waddanka Suudaan. Naada ayaa waxay caan ku tahay ku dheganaanta dhaqankii hore ee Suudaanta, waxayna ku doodaa in ragga iyo dumarka mid walba uu leeyahay boos loogu talagalay dhaqan ahaan, oo ay tahay in mid walba dowrkiisa uu ka soo baxo oo aan la isku dhex yaacin. Waxa aysan rag badan afka uga dhigin hadalhaynta Naada kaliya ma ahan codkeeda halaasiga ah ee ay ku qaado heesaheeda, ee waa qof joog iyo jamaalba isku darsatay. iyaduna waxay xoogga saartaa in ay hadba nooc u soo bandhigto quruxdeeda iyo qaayaheeda. qaabka ay u xirato toobka oo ah maro ay caan ku yihiin dumarka Suudaanta, naqshadaha cusub ee ay ku soo kordhisay cilaan saarashada waxayba noqotay halbeeg qurux oo ay ku daydaan dumar badan. mufakir reer Suudaan ah oo magaciisa la yiraahdo Haydar Ibrahim oo ka sheekeynaya Naada Qalca ayaa wuxuu yiri: Naada kaliya ma ahan gabar heesta, ee waxay calaamad iyo tilmaam u tahay quruxda, waana hanti dhaqameed ay tahay in la ilaashado. sidoo kale Dr. Xasan Muuse oo asna Suudaan u dhashay kuna takhasusay taariikhda funuunta iyo xadaarooyinka barana ka ah waddanka Faransiiska ayaa mar uu ka hadlayay Naada Qalca waxa uu yiri: muuqaaladeeda markuu qofku daawanayo iskama indha tiri karo quruxda iyo qaayaha Ilaahay ku galladay gabadhan, waxayna si yaab leh u soo bandhigtaa ayuu yiri joogeeda iyo jamaalkeeda, waxayna marjac dhanka quruxda u noqon kartaa mujtamaceeda iyo dhaqankiisii horeba. safarkii muranka dhaliyay ee ay Nigeria ku aaday. Naada Qalca waxay bandhig faneedyo ku qabataa dalal kala duwan. mid ka mid ah bandhig faneedyadeedii ay dibadda ku qabatay ee muranka weyn dhaliyay wuxuu ahaa bandhig faneed ay ku qabatay waddanka Nigeria, kaas oo ay martiqaad ka heshay mid ka mid ah governorska waddanka Nigeria. Naada Qalca ayaa bandhig faneedkan waxay ku qaadatay lacag gaaraysa $100,000 oo doolarka Mareykanka ah oo aysan ku jirin kharashaadkeedii ku baxay safarkeeda. sidoo kale governorkii martiqaadkan ballaaran u sameeyay Naada Qalca ayaa wuxuu hadiyad ahaan u siiyay gaari nooca loo yaqaano Lexuska iyo telefoon ka samaysan dahab iyo sidoo kale hadiyado kale oo diamond isugu jira. isla markiiba qaybo badan oo ka mid ah warbaahinta Suudaan ayaa sheegay in governorkaas Nigerianka ah ee martiqaadkaas ballaaran u sameeyay Naada Qalca uusan iska siin hantidaas faraha badan ee uu jiro xiriir gaar ah oo ka dhaxeeya labadooda. dhanka kale Naada Qalca waa ay beenisay warkaas iyadoo sheegtay in martiqaadkaas ballaaran iyo hantidaas faraha badanba ay ku heshay qiimaha fankeedu uu ku dhex leeyahay qaaradda Afrika iyo wadamada Carbeed iyo meelo badan oo ka tirsan dunidaba. haddii aad muuqaalkan ka daawanaysid page-kayga Facebook-ga oo inta badan aan idinkula wadaago waxyaalaha yaab kale iyo dhacdooyinka qariibka ah ee dunida daafaheeda ka dhaca ee ay warbaahinta adduunku qorto, waxaan saaxiib ka codsanayaa in aad muuqaalka like saartid sidoo kalena aad sii share gareysid oo aad asxaabtaada la sii wadaagtid. haddii si aad muuqaalkan ka daawanaysid kanaalkayaga YouTube-ka oo aad horey ugu taxanayd fadlan like noo saar. haddii aad hadda ku cusub tahayna waxaan ka codsanaynaa in aad like iyo subscribe noo saartid si ay kuu soo gaaraan xalqooyinka xiisaha leh ee aan ku soo gudbino kanaalkayagan. ballanteenu waa muuqaalo kale oo xiiso leh. nooli kulantee waa mahadsantihiin saaxiibayaal. guuleys.